dalka Turkiga ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu kala shaqeeyo wada hadalsiinta Xasan Sheekh Maxamuud oo sharci darro ku jooga Villa Soomaaliya iyo mucaaradka. Madaxweyne Farmaajo oo aqbalay ayaana maanta dalka dib ugu soo laabtay. Dowladda Turkiga ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbatay inuu kala shaqeeyo wada hadalsiinta mucaaradka iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo sharci darro ku jooga Villa Soomaaliya. dalabkan ayaa yimid kadib bayaan cad oo uu gudbiyay madaxweyne Farmaajo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Bayaankan ayaa u qornaa in dalka Turkiga loo aqoonsan yahay dal walaalahooda shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeedna ay u og yihiin inuu yahay dalka Soomaaliyeed ku leh amaal badan. isla markaasina waxa uu la wadaagay in ay jiraan siyaasiyiin ka shaqeynaya in ay iska hor keenaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Turkiga. Wuxuu sidoo kale la wadaagay una sheegay in lagu eedeynayo dawladda Turkiga in ay si cad ula shaqeynayaan madaxweynaha sharci darrada ku jooga Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wasaaradda arrimaha dibadda oo ka jawaabaysa bayaanka madaxweyne Farmaajo ayaa markii ugu hore ka codsatay inuu kala shaqeeyo wada hadalsiinta mucaaradka iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo sharci darro ku jooga Villa Soomaaliya. sidoo kale waxay la wadaagtay madaxweyne Farmaajo inuu yahay siyaasiga kaliya oo heerkaas gaaray oo aan ku dhex milmin isdiidooyinka siyaasadda Soomaaliya isla markaasina uu yahay nin u dhaxeeya mucaaradka iyo sidoo kale dawladda muddo dhaafka ah. ayna sheegeen inuu wada hadalsiin karo isla markaasina ay u baahan yihiin inuu kala shaqeeyo. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale Farmaajo la wadaagtay in ay faraha kala baxayso arrimaha siyaasadda gudaha Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa aqbalay dalabka dalka Turkiga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda isagoo ku xiray hal shardi oo halis ku ah Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ah in dalka Turkiga uu la wadaagay in haddii ay fashilmaan wada hadallada u dhaxeeya mucaaradka iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo sharci darro ku jooga Villa Soomaaliya ay iyagu aysan la shaqeynayn Xasan Sheekh Maxamuud, sidoo kalena ay faraha kala baxayaan banaankana ay ka istaagayaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. isagoo oo la wadaagay una sheegay in loo baahan yahay in ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda ee gudaha Soomaaliya banaankana ay ka istaagaan inta laga gelayo doorasho. taas haddii ay cadeeyaanna waxa uu la wadaagay inuu kala shaqeynayo wada hadalsiinta mucaaradka iyo Xasan Sheekh Maxamuud. wasaaradda ayaana Farmaajo la wadaagtay in ay banaanka ka istaagayaan arrimaha siyaasadda ee gudaha Soomaaliya. sidoo kale haddii ay wada hadalladan fashilmaan aysan gebi ahaanba la shaqeynayn Xasan Sheekh Maxamuud ilaa inta laga gelayo doorasho madaxweyne cusubna uu ka imaanayo oo isaga bedela. madaxweyne Farmaajo ayaana soo gaaray magaalada Muqdisho isagoo halkaas ka bilaabaya kulamo siyaasadeed. sidoo kale safaaradda dalka Turkiga ayaa dhankeeda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. haddaba dalka Turkiga iyo madaxweyne Farmaajo ma ku guuleysan karaan wada hadalsiinta mucaaradka iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo sharci darro ku jooga Villa Soomaaliya.